الله أشياء عاوض حبيب مثل ما أكون عاوة حبيب كي أنقذ من كل حرية صوماليا دلنا بدنا كل شيء حرية وعزاي حرية أبيش بوصل دجال أبيش بوصل دجال حرية أبيش بوصل دجال أبيش بنا نسوق كرشي وحن mahadsanayna dhalinteedii hore oo nalada jirto waa wada joognaa alxamdulilah ilaahay mahadaas iskale oo anagoo nabad qabno after 6 bilood ama 4 bilood 5 bilood anagoo markaas xaaladaha ay iska dhumaayeen wadanka oo adduunka oo dhan aan la qabnay in anagoo caafimaad qabno haddana dib aan isugu soo noqonay anagoo nabad qabno taasna ilaahay mahadiisa alxamdulilah and on the how are the masantahay runtii caawa waxaan ku sugnahay magaalada Manchester hoolka caday waa habeenkii xarmada aan qaadanay calasaadkii 1 July waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in caawa ay wada joogaan Greater Manchester خاصة وحن ما هاد قالوا سجدينا غير بولتون إيران مانشستر عاو مركا ما دام سيدي هورلو شيغيبا حوغا عذر كان كورونا فيروس كان أما كوفيد 19 كان سوغري درتي مركا إنان معناها أن لو فوقالو لكن نظام عافيماتك iyo sida nidaamku oo guud ahaan ay u socotaba waxaan noo qaabilsan caawa Zahra Soomaali oo halkan aan ku soo dhaweynayo marka awaamirta ay farayso sida ay tahay sida loo fariisanayna kulito aan ku ixtiraamna ayada marka waxaan leeyahay Zahra welcome ku soo dhawo qaabkii aad soo xirtid iyo macnaha dadka asaga u sheegtay insha Allah السلام عليكم مقعي وسهل الصومالي waxaan kamid ahay hooyooyinka Manchester badi wajigiina waa aqaanaa markii aan ka reebo wiilasha dhalinyarada ah aniga dhalinyarada waa ku jira laakiin haddana waxa waaye soo dhawaada waxa waaye sida boowo inii sheegay sax waaye wadana cadaay waa inaan ma arkido taxadarno because waa ogtiin xaaladda ee maaragtay sida ay maaragtay yani aan ku siganahay marka ma rabno inaan hadhow cudur aan maaragtay ama annaga ama familka aan dib ugu celino marka waxaa la rabaa iyadoo maaragtay la baashaalaayo in xoogaa haddana nidaamka la ilaaliyo distance-ka la ilaaliyo marka qof kasta qofkii rabo mask maarkin oo anaa hayo waa iimaan kartiin yani geedkan wajiga lagu xirto qofkii gloves rabo geedaan oo kale ma arkina microphone-ka ama geedaan aan dhaha ani reexamada ahay kulli raalli ahaada marka haddii aad rabtiin ma arkino yani in la nadaamiyo in la nadiifiyo yani hygiene-ka daraadeed يعني contamination أو سكوتين أيضا نوان هاي أمر حوجا أن تحضرنا أذنكم هاتسم إنه نوع إمارة ونقدر قيب خاطر ما عوض ما دام آد قفقست الصومالية المهين وقفتها مركا أبي آلة مهاتسم تاعي مضارع ولا سوى دوام بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa marka hore inaan halkan ka salaamo dadka soo dhowlaayay kulankan runtii gaaban oo ku soo beegmay xilli mataqaanaa aynu ku jirno marxalad adag oo dadku inta badan aanu isu iman karin marka kolley waa yarnahay waana kala fognahay intii lagu talagalay baynu nahay nuu qorshaysnay in dabaaldeg aad u weyn ilaahay waa waaxida aynu isugu nimaadno oo aynu ku weyneynayno runtii sanad guurada kasoo wareegtay dhexdhexaadii kasoo wareegtay markii waqooyiga xornimada uu qaatay 26 Juun iyo 1 Lulyo ahayd maalintii midnimada oo la yigleelay waddan Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed runtii ka dhexeeya marka waxaan doonayaa marka hore inaan hambalyo u diro dhammaan shacabka Soomaaliyeed hambalyo si gaar ah ugu diro mataqaanaa dowladda Soomaaliya iyo dhammaan jaaliyadda reer Soomaaliyeed ee Greater Manchester insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkani kolley lama ogola in xaflad la qabto oo la isu yimaado laakiin sanadka soo socda yahay in xaflad aad u weyn
oo qiimo badan oo meel kasta adduunka isaga yimaado runtii inaanu mataqaanaa aynu samayno aniguna xildhibaan ahaan iyo council ahaan runtii taageero aan soo geysan karno runtii inaanu ka geysano intaa kadib waxaan doonayaa dhowr qodob runtii inaan ka ilaahdo muhiimadda maanta ay leedahay runtii waxaynu dee ka wada daragsannahay soomaaliya maanta 60 sannadood bay jirtaa 30 sannadood oo soomaaliya dowlad ay lahayd mid dimuqraadiya iyo mid kale iyo 30 sannadood oo inta badan 30 sannadood ka mid ah dalka uu burbur ahaa runtii waxaa maanta farxad inoo ah 30 sannadood dhibaatada soomaaliya ka dhacday in maanta soomaaliya runtii ay ugu rajo fiican tahay xagga horumarka mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid dowladeedba taasna runtii waxaad moodaa inay tahay dadkii soomaaliyeed oo dhibaatadii iyo mataqaanaa dagaaladii kasoo cusboonaaday kasoo kowday fahmayna runtii in isu imaatinka dadka iyo dowladnimada ay tahay mid ay horumar qof kasta ama deegaan kasta ama koox kasta runtii ay ku heli karto yididadaas runtii waa muuqataa inaguna shacab ahaan kolley shacabka soomaaliyeed waa dad adduunka kala jooga sidii dowladnimada iyo mataqaanaa horumarkaa la sameeyey runtii aynu u taageeri lahayn baa runtii laynaga rabaa maanta runtii waxaan la soconaa oo intiina mataqaanaa meelaha bulshada ku xidhan ama tviyada daawata in maanta mataqaanaa allah mustacaan caasimadda xamar maanta laga furay mashaariic aad u fara badan oo garoonka ciyaaruhu weliba garoonka ciyaaraha weliba runtii laga furay taasina ay tahay mid mataqaanaa farxad gelinaysa dadka dhalinyarada anigu dhalinyarana sportka waan marka waxaan rajeynaynaa insha allah marka garoonka operational uu noqdo in aanu halkan ka kaxayno koox ama united ama city ama koox yaroo kalaba oo dalkii geeyo xamar geeyo oo garoonka dadkiina kusoo ciyaaraan taana waxaan rabaa inay xaqiijiyaan dadka soomaaliyeed ee magaalada degan taa hadda intaan ku dhaafo waxaan doonayaa kale inaan ku daro runtii taariikhda soomaaliya dee waa waqti badan iyo marxalado badan baa lasoo maray midnimada soomaaliya iyo isu keenida soomaaliya iyo dalnimada soomaaliyana runtii dhibaato badan baa laga soo maray hadday tahay dadkii mataqaanaa xurudiriska ahaa ee mataqaanaa keenay inay maanta soomaaliya calankeeda mataqaanaa waddan xor ay noqoto ilaa daraawiishtii ilaa iswaayl ilaa dadkii ka dambeeyey iyagana runtii inaynu u ducayno baan rabnaa marka 12 baa lagu dhow yahay shacabka soomaaliyeed waa hambalyeelaynaa dowladda soomaaliya gaar ahaan waa hambalyeelaynaa waa bogaadinayna shaqada fiican ay mataqaanaa ay ummadda soomaaliyeed u hayaan insha allah inna waxaan rajeynaynaa inaynu wixeenu tari karan aynu tarno marka hambalyaan leeyahay caalamkii baynu saarana aad baad umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi waa mahadsantahay mudane أحمد waxaan dhaweynayaa calankii xilligaan calanka saarayna ayaa soo dhow marka waxaan dhiibayaa axmed gudoomiyaha manchester walaalkeed oo arrintaan oo dhanba maaragtay madax u ahay marka soo dhawaa mudan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهدي أعداد ومحسنتين لمان عند أعتصر ويرجشي حفلتان عاوة تانكين أهدي أعداد ونويري هاي وحانا لجوغا كسلاتين مهدي وأهدي مركز بنا تاغير مركز أنجونا ومدى الصومالية وحاقوا همبليين عيدا كود اللوليو سنتقول دي لحدنات لما عن مركز إنجوغان ودنكي قديسي يتبدي سبا aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka soo qayb gashay meeshan oo xafladan caawan uga soo qayb galay waad ku mahadsantihiin dhammaan taankeena haddana ugu dhammaaday waxaan haddeer heestii calanka triminada dhiman intaas dhammaan hadda waxaan haddana kadib hadda waxaan u yimaadaa gudoomiye isboortiga bolton kusoo dhawo mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo anaga waqtigeenu weer yahay waxaan leenahay waa laga sheekaya caawa taariikhdii waxaa liloobi karin waxaa waaye waxay tahay loo midow waa dhalinyarada meel kasta ay joogaan waxaan jeclaada inay gacnaha isqabsadaan inay muujiyaan wanaagga inay muujiyaan
waxqabadka dalka inay gacan isqabsadaan haddana waxaan kusoo dhaweynayaa fanaanadii weyne xaawa keyd dhammaan dhalinyarada halkaa iskugu timid waxaan idin leeyahay farxad wanaagsan maalinta wanaagsan aa iskugu soo baxdeen oo quruxda badan leh waa dhannahay qof naga maqan mara kasoo arkayna dad nala joogo gudoomiyaheen nala joogo gudoomiye cadaay oo mar walba garab taagan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqa magaalada Manchester iyo weliba Soomaaliya oo idin mar walba xaalad walba markaas garab taagan howlkiisana mar walba free noo siiyo wax walba aan ku qabsano waxaan leenahay oo ku mahadcelinayna oo ku mahadsantahay gudoomiye cadaay haddana waxaan joognaa saacadii aan calanka saari lahayn 1 minute waa ku dhacday aan malaynaa insha Allah heestii calanka Soomaaliya insha Allah 50 second kaasna waxaan leenahay dhammaan waxaan baryo Muda Somaliyed meel kasta aad joogtaan farxad ku waaro ku ciida kula qaata calankiina maalinta xornimada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waa maalin ugu weyn oo walba xilka saaran yahay meel walba ay joogtaan mar walba waxay idinku dhiirigelinaynaa dhalinyarada waa in mustaqbalka maanta inaad mar walba aad sidaas ula qaybsataan waana mahadsantihiin وقولكي مدني عداي وحنا نسكون نمت وحكست سببين ودبادقي يعني كسوري في 11 سنة مركا وحنا نسنا كل جانا جبا درين آدي في عنا ولا درين سنة هاي مركا آدي أيام ولا فرح سنة هاي إلهي أن هذا سكره وحكلوا من هالعيدين أنا واسكتوبا يعني اسكما إيمان الحرية ده ضد أي أصوات انتي وما عرفتي ضد كسوائن ما عرفتي أنفسنا مركا انتي نولنا ويبنوش هاي لكن وحنا أمي سنة هاي ضد بدن إني أوجيريودين ما عرفتي أنا كنا وحنا جينا هنا أنا واسكتوبا إن دولة أنا وائنا ما عرفتي من هالعيدين
وأركتين صدر سنة وحين لغة أنتي يعني سما لا يعني ما أركتي سي يعني ما أركت لما فلان marka hadda alxamdulilah rajada aad iyo aad ay u fiican tahay dowlad ayaan haysanaa waa aragteen hadda magaalo madaxa dad qofka bini'aadanka jirkiisa meesha ku sarreysa waa madaxana waa dowladda marka dowladda hadaysan jirin wax jirta male dowladda annaga oo hambalyeynayna maaragtay maalin maalmaha ka mid ahna waxaan rajeynaynaa maaragtay in aan waddanka annaga ku noqono maaragtay intana waa waddanka annagii oo waa inaan maaragtay dadka aan la noolnahay nabad aan kula noolaano haddana qof kastaba dareen uu leeyahay dareenka waxaad ogaatiin awada dhibka jira qof kasta waa maaragtay intaanadaan waa soo wada baxnay maxaan soo gudbiyey waa dareen iyo farxad iyo maaragtay wadaninimo aan maaragtay aan dareensanahay marka waxaan leeyahay waldaan qof kaste ma arkin oo ii sheeg aad iyo aad maaragtay meeshiina kasii wada walaalaha isku imaado oo dhan waxaan leeyahay adigoo ku hadlaaya magaca hooyooyinka ama magaca jaaliyadda Soomaaliya yani ii sheeg inkastoo joogaan dadkii ma aragtay يعني سوق مقابي وأدي يعني مارك سوق مارك حبيبي مارك سوجيري وفكرة دام كانت مارك يضع عوض السنة قط السبع يعني أي كل شيء قصي أيام حدنا ضد أيام كسر شقي ويمكنني بدون لها مدن أحمد مدن حداي مرتو عليه مجد إن حجره ولكن إنه أصلا معركة آدية نقاط زي المعروف عليه هاي ومركز معركة هي هو معركة نلا قرب تاجن بكوس واحد أوقاتين ما قا معركة يعني كونسلا أكيد جرو مانشستر ومية سومالي فكرة ده أنا كل مقدسة مقدسة بين النكيسة كنها مالنا نكيسة أسقط بين النكيسة كنها مركا ونقلنا حي ونقمت مركا وحنا ولدان مدن محدي سووا ما نقدر تعرفه مركا عليه بيستو مش هذا كسيوة وحنا جينا ناويل بدنا أسقط لبدا إحنا إني نوصل بحال إنت بدنا ماركن أدين كانوا واحد سنتين دلني يرد عوض اللي بحاليا بنا حوين كميش عمير جري لكن عوض اللي لا عميري ولدان ويلش ماركن عوض المعمل مركا أرجع من فرحنا أنا هالكاسان كسي ودنا ماركن ويشد أنت كسوق يبقى عضتينا ماركن غير لها سيو كوميونيتي الصومالي أو مانشستر ودد أدي وناكسن waxa ma aragtay aan kamid ka wada midnahay ayaa ma aragtay noogu muhiimsan waxaan ku kala duwanahay marka waa inaan ma arkino yani aan aad iyo aad ma aragtay isku tixgelino oo iska ma aragtay isla shaqeyno adinkoo mahadsan waxa kale oo rabaa waxa jira wiil aad iyo aad u fiican oo shaqo aad iyo aad wax badan aan isla shaqeynay wiilkaas waxa waa wiil Soomaaliyeed magaciisa waxaa la yiraahdaa cadaan inta taqaaniin hadii kalaba aad ma arkino isku shaqeynay since 2003 ma arkino waa muddo laga joogo cadaan goorma qeeyay kala sheeg waxa waaye ma arkino ani asaga telefishinkan ma arkino isku raaci jirnay footballka dhankiisa hadda aniga xataa waxa igu dareen maalmaha qaarkiis markuu xanuunsan yahay arbiter ana noqon jiray maalintii ugu dareen wiilana waxay dhahayaan noqonaya anaa qabanaya eri ciyaarta waxay dhaheen saadiyeeye Soomaali waqti gabadha la sax waxa ay dabeesha dhalkay u socota leeyahay waqti marka عداي وقبطة أنا ترى بدن مشدنا الصوماليين مركي أم كفنا ولا كفا مركان أوينا ولا أويا مركان قصنا ولا قصلا لما ما عرفت لما بحثت الكلام ما عرفت مالها إذا ما كنا أدرسين هذا ما أكل حرية أدي من شقيين يعني اللي هذا حدي أن تستعرى عمر الإنسيو عوض وحاها كان يعني عارفنا إن نكون جونسينو تروي جاس هكذا يلا وأسرع شقيستي because تبغى نعمل جسر ولدك ما أكنه إيش الأسرع أيام ما أكنه
aan u garanay sababtana waxaa waaye waa 60 guuradii waaye hase ahaatee 60 kilomitir ay ila lugay hadda taqaaniin ayuu ma arkino yani uu kasoo u dhameeyay marka walaalkeen waxaan leeyahay ku soo dhawaaw okay waaye marka waxa siinay waxa waaye mudanaha Manchester gudoomiyaha mudane Ahmed iyo walaalkeen Kowsada Nahdi iyo anigoo Sahara Soomaaliya marka kulligeen waana waxaan u malaynayaa waad ka qayb qaadateen iyadoo waxaan ugu talagalay gudoomiye cabdiqaadir ibraahim cadaay waxa weeyaan hadda idin bari maayo nin Soomaaliya oo daba oo runtii jecel horumarka dadka magaalada weeye sida Sahar sheegtay mar kasta cadaay waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa sidii mataqaanaa dadka la isugu ururin lahaa sidii sportiga loo taageeri lahaa nin runtii jira weeye mar kastana qiimo weyn u fadhiya bulshada annagu cadaay hadda ku daarusnaqaanay oo aan saaxiibo ahayn barnaamij leeyahay walaal ila lugeeyo wada mataqaanaa uu wadaa marka cadaay war kasta waa inuu humbaliyay runtii siduu bulshada mataqaanaa arrimaha bulshada aad uga qaato marka cadaay soo dhaweeyay baashana waa aad ugu talagalay aad ma runtii waxaan halkan mahad gaara aan ugu soo jeedinayaa jaariyadda Soomaalida ee Greater Manchester oo hogaamiyo gudoomiye Ahmed Al-Qurabi Zahra oo runtii Zahra Soomaali oo sheegtay taariikhdii aan iskala soo bilaabnay sportiga waxaan ilaawi karin sanadkii shanaad oo dabaaldega kooda Lulyo oo mar walbaba hiil iyo hoo nala garab taagan fanaanada weyn xawakiin inta kale ma tirin karo waa la daba socdaa marka waxaan jeclahay inaan idinkaga mahad celiyo hadiyaddan quruxda badan waxaan kaloo la ilaawi karin codkan baahiyaha ah mar walba ninka freega nagu siiya cusbaan jooli oo mar walba qalabkiisa noo keena runtii caawan isagoo weli xanuunsan noo imaaday ajri xasanaad allaha ka siiyo marka waxaan leeyahay jaaliyadda waa idinka gudoomay hadiyadii walaal ila lugeey 60 kilomitir sanad guuridii 60aad 60kii iyo 7aadka xorriyadda marka waxaan halkan ka xusayaa ninkii ugu horeeyay dhalinyarada ahaa oo 20 jirka ahaa ee South Africa ka orday 60 kilomitir subaxdii bilaabay duhurkii dhameeyay waa wax aad iyo aad loogu farxo waa Cabdikariim Maxamed Nuur from South Africa marka dhalinyaro kale fara badan oo ka shaqeysay oo ugu horeeyay Guulad Nuur oo jooga dalka Qaahira iyo Mahdi oo isagana jooga Muqdisho iyo dhalinyaro kale fara badan oo tartanka ka qayb galay Kenya waxaan kaloo la ilaawi karin shalay oo 60 kilomitir dhamaystay Xasan Waraaba Cabdi from Norway oo isla ka yimid isagana waxaa kaloo jira Cabsaar Dheere Mareykanka aan la ilaawi karin marka haddii aan dadka ilaaway aan laga raalahaado Bashir from Belgium oo asigana Belgium macnaha Brussels ka yimid oo runtii iskoorkii shalay maan daraj jibiyay isaga 60 kilomitir dhamaystay baa isaga dadkaas aan soo tirinay kulli macnaha waa dad dhalinyaro ah meeshan ana kulligood ana ka wada yara ana ugu yara meesha marka aad yaa umaasantiin haddana waxaan ku wareejinayaa entertainmentigii iyo gudoomiyihii iyo Zahra iyo Xawakiin intaba هدايا ولكن مدني gudoomiyaha Ahmed yani maaragtay waxaan rabaa inuu hadaan halkaan maaragtay wadana ku yiraahdo adiga leeyahay